السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي دعوة الله مركلة برنامج رياكشن. هذا رياكشن كان مانتا waxaan ku soo qaadanaa dood aad u adkayd oo dhex martay rag iyo dumar aqoon-yahaniina taasoo lagaga doodayay dhismaha qoyska iyo kaalinta ay sodohdu ku leedahay family-ga. Haddaba bal ra'yigaas ayaynu halkan ku falqayn doonaa. haddaba daawade adiga ayaan ku weydiinayaa su'aal taasoo ah gabadhaadu ama xaaskaagu haddii ay kugu xidho ama ay shardi kaaga dhigto in adiga hooyada ay kaaga fasax qaadato marka ay imanayso gurigaaga in aad xaaskaaga weydiiso oo aad tiraahdo hooyaday ayaa imanaysa oo aad u idanto bal adigu ra'yiga siduu ku leeyahay kolley aniga xaggayga waa mid aad u qaldan runtii waayo hooyadu waa nolosha aadamaha la'aanteedna runtii cid jiri lahayd may jirteen. bal haddaba ila daawada abwaankan oo arrintaas isbarbar dhigaya hooyadii iyo xaaskiisu haddii ay u sinaadaan waxa uu samayn lahaa. daawasho wanaagsan. qaadanaya sudoodii kulli areekayga looga qaadan maayo adiga oo iga u yar haddii imka intu diido ay tiraahdo ma doonayo maad furaysaa easy ajamnaatu taxta aqdaam al-ummahaat buu rasuulku joog ما شاء الله والدين ما nabigu تفرسها calayhi salaatu wasalaam cagaa hooyaday buu jannada dhigay laakiin caga gabadheeda muu dhigay ويدي ما تفرسها soddon hadday tegayaan gabadha hooyaday halkaa ku qaadi doonaa voy ganjeelo kadinka ka baxaysaa فرينكو عادي بكل ايها ها اوكي ميثاق القلب hooyaday hooyaday joog hooyaday gabadhayda hooyada halkaasaan ku sidaa madaxay ii saaran tahay hadday hooyaday madaxa u saarnaan weydo albaabku wuu furaya waayo bal haatanna waxaynu eegi doonaa ray ka duwan raygaas oo ay qabto gabadh ka mid ah kasoo qaybgalayaasha barnaamijka oo iyadu tiri aniga ayaa ka mas-uul ah guriga kuna doodaysa oo doodeeda u dhignayd in ninku ama ragga qaarkood aysan ka maarmi karin xaaskooda sidaa daraaddeedna ay iyadu shardi ka dhigayso oo ay leedahay aniga ayaa ka mas-uula guriga ninkuna wuxuu ku qasban yahay inuu iga fasax qaado marka ay hooyadii imanayso guriga balse dhanka xagga family-geeda iyadoo ay ku doodayso oo ay leedahay aniga hooyaday walaalahay iyo ehelkayguba si shuruud la-aan ah ayay ugu noolaanayaan guriga. runtii xaqiiqatan dee labada family oo qoys kastaaba wuxuu ku dhisan yahay afar waalid oo kala ah labada waalid ee dhalay gabadha iyo labada waalid ee dhalay inanka. labadaasuna waxay tiir u yihiin jiritaanka qoyska. haddaba waana isku xidhka family-ga. bal haddaba gabadhaas ra'yiga qabto ila daawada. kidho hooyadiina kama maarmayo adigina kama waxa jira wiilal qaar dumarkooda aan ka maarmin dumarkoodu la culustayde oo si dhibaato isku heleen marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmin do hooyadii guri ha u kirey waan soo booqana hooyadii bay noqotay do hooyadii gurigii ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogolay kama fasax qaadanayaan hooyadii in hooyadii guri ku noolaato. haddaba daawadayaal waxaan odhan karnaa fikirka gabadhan ay soo gudbisay runtii maaha fikir dhaqankeena suuban iyo diintu midna ay dhigayso waayo dee ilaahay qur-aankiisa wuxuu nagu sheegay jannada inay taallo cagaha waalidka ama cagaha hooyaduna ay tahay shay aad u qaaliya. runtii waxaa jira fikir dad badan oo qaba fikirkan kana aaminsan waxaan taa ku saleynaa ama aysan odhan karnaa barbaarinta ilmaha marka uu yar yahay waxyaabaha lagu barbaariyo ama halka uu ku nool yahay waxyaabaha ka dhacaya ay indhihiisu qabtaan ama sheekooyinka uu maqlo ayuu ku saleynayaa aragtidiisa fikirkiisa oo qofku haddii lagu barbaariyo marka horeba ama ay aragto in khilaafi ay dhacaan oo khilaafyadana ay sababaan oo iyadu ka maqasho waalidka
in ay sabab u tahay wiilka gabadha wiilka hooyadii ay sabab u tahay oo la dhaha sodohdii baa problem aduu waxyaaba caynkaas laakiinse ma aha misaalku xaqiiqatanna ma aha fikirku iyo raygu in lagu qaato inta yar ee waxa muhiima dadka mujtamaca inta badan in la qaato Soomaaliduna sideedaba dhaqan ahaan waa dad isku tiirsan isku xiran xid iyo xigaalbana iscaawiya isna jecel bal haddana waxaan eegi doonaa doodan intaan daawanayay raygii ugu wanaagsanaa oo ay soo jeesay gabadh ka mid ah gabdhaha dooda ku jiray runtii aadna ii qanciyay runtii ahna rayga ay Soomaalidu dhaqan ahaan diin ahaan iyo wax walba ay runtii fahansan yihiin bal hadda kana hanoo daawan وبلن علي عبد الرحمن دينيا مركن اغنو قف اسلام اتحي waxaad qadarinaysaa horta hooyo marka ka timaado waxaad qadarinaysaa qofkan dumarka ama insaaniyada kugu laabaneed u sameyn karto insaaniyada ugu yar aad u sameyn karto qof bila aadana kaba soo kow inoogu darda diinteeni hooya meeshii timiday sodohba ka imo hooya timiday waxa timida hadana dhaqankeeni Soomaaliga inagu eegin dhaqanadeena Soomaaliga inagu eegin waxa ku timiday sodoh war kelmadda sodoh yaa la khalad fahmin hablo kelmadda sodoh yina khalad fahmin sodoh waa hooyo ninkanaad jeclaatay de hooyo jecelo ifka ku keentay baa jirta yaa keenay ifka waa hooyadii sanad nacaysid baa keentay ninkanaad iska jeclaatay cidlada ka soo jeclaatay soo kaxaysatay ka mas'uulka ah qof baa ka mas'uulaha oo noloshiisa ka mas'uulaha oo hadduu xanuunsado u fikirayay oo hadduu cilmi haddii doorsan meel u gaaray ama meeshan adiga iyo munaasabadan uu ku soo saaray keentay oo soo istaajisay kow taa ka fikir logic aynu u fikirno talabaad leedahay yani option hayga qaadato in hooyadii ogolaanshaha hayga qaadato in gurigeyga timaado that's wrong sababta oo ah hooyada markay imanayso guriga hooyada isaga kuma tiraado war hooyada baa imanaysa ama walaashii baa imanaysa guriga madu ogoshahay kuma tiraadid sababta aad u weydii sababta uu ku weydiinaya maxay tahay hooyadaaba imanaysa aniga weydii aniga ka hor inta in hooyada iman maxay tahay sababta ku xidhaysa waayo hooyadaaba kuma xidhin isbarbadhig waa labada qof ku sinaadaan runtii waa ray aad u qurux badan xaqiiqatan hooyana waa hooyo say u sheegtay hooyooyinkuna runtii dee inanka iyo inantuba waxaa muhiima inay qadariyaan oo xishmeeyaan laakiin si mid aan ku daray xaqiiqatan qoysaska Soomaalida burburka waxa uu wacan mid ayaa muhiima in la ogaado ray ahaan guurka iyo macnihiisa iyo reerka fikirka ay ka aaminsan yihiin wiilka iyo gabadhu taasaa muhiim oo important ah waayo qoyska cid burburin kartaa ma jirto haddii kalsooni ay isku qabaan labada qof ee iscalmaday cid ay wax ka go'aana waa labada qof ee iyagu isguursan noloshooda wadaagay ku sheer garoobay markaas sabab inay looga dhigo calashaan dad kale oo family-ga ah ama hooyadu ha ahaato ama cid kale ha ahaatee anu fikrin waxaan qabaa inay tahay aqoon darro iyo garasho la'aan because of labada qof ay isguursadeen de kalsooni bay isu guursadeen kalsooni ay shalay isu guursadeen ayuun bay reerkoodana ku dhaqan karaan laakiin ray waxaa jira fikir qaldan oo Soomaali aaminsantii oo ah oo qoysas kala dumiya been ku soo xirigalay runna ku dhaq runtii raygaasoo aan isweydiiyeen badan talo ma dumarka beenta jecel in loogu sheekeeyo ma wax kala jira waayo noloshu sida beentu waa shay xaraan noloshuna basic asaaska waxay ka dhismaysaa in run lagu wada dhaqmo oo ay gabadhan iyadoo dibadda joogta ay u bareedho nolosha wiilkan uu ku jiro haddaba daawadayaal barnaamijkeena intaasaan ku soo gudbinaa waa maxamed lixiro idin leh subscribe share and comment waa dhankiina thank you for watching it see you again bye bye